madaxweynaha xisbiga talada haya ee ANC ahna madaxweynaha South Africa Jacob Zuma ayaa markii ugu horeysay inta uu xilka hayo ka hadlay dhibaatada lagu hayo ajaanibta ku sugan gudaha dalka South Africa isagoo ka jawaabay weydiimo golaha baarlamaanka dalkiisa ayuu ku nuuxnuuxsaday jiritaanka jisnaacibka isagoo sheegay in arintaasi laga badbadinayo inkastoo madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma uu qaranayo jiritaankeeda haddana aysan xaaladu hayn halka la gaarsiinayo ayuu yiri wuxuuna warka intaasi ku daray in Koonfur Afrika ay ku sugan yihiin ajaanib badan oo nolol iyo shaqo wanaagsan ku haysta gudaha dalka Koonfur Afrika. Of the xenophobia is an issue that I think everybody is very much on the alert on it, that it cannot be an issue that could get out of our hands. Now, arinta ku saabsan ajaanib naciibka waxaan u maleynayaa in ay tahay arin cid kasta ka digtoon rabtana in aan loo ogolaanin in ay faraha ka baxdo. I think if you were making a comparison and looking at the numbers of the Africans in South Africa who are foreigners, is very huge. haddii aad isba bardhigtid adigoo eegaya tirada dadka Afrikaanka ee ku sugan Koonfur Afrika kuwaasoo ah ajaanib waana tiro aad u badan waana kuwa ugu fircoon meelo badan waxaan u maleynayaa in dhacdooyinka sababay in arintaasi la soo hadal qaado in aysan ahayn kuwa tiro badan waxaan u maleynayaa in mararka qaar ay jirto waxoogaa ka badbadin ah taasoo ah in ajaanib naciibka ay tahay dhibaato weyn Koonfur Afrika maradahayo ma aha wax jira. I think there's a bit of exaggeration. I'm not saying it is not there, because at times when instances happen, this is seen, particularly when people react. But maradahayo ma aha wax jira mararka qaarkood way dhacaan waana la arkaa gaar ahaan marka ay dadka falcelin sameynayaan. But foreigners are busy everywhere in every corner of this country, employed. And that feeling is not that big. I mean, if we are taking the size of the foreigners other than South Africa, you would be saying this problem is too huge. Mohamed Musa Noor, Universal TV, South Africa.